Lamine Yamal oo dhigay 2 rikoodh oo waali ah kulankii Villarreal. Garabka Barcelona Lamine Yamal ayaa fiidkii Sabtidii dhigay 2 rikoodh kadib markii saddexley ka dhaliyay guushii 4-1 ee kaga adkaadeen Villarreal ee horyaalka La Liga. Sida ay sheegtay Opta, Yamal ayaa hadda ka mid noqday ciyaartoyda ugu da'da qarnigan 21aad ee dhaliyay saddexleydii ugu horeysay ee La Liga. Wuxuu sameeyay taariikhdan isagoo jira 18 sano iyo 230 maalmood. ciyaartoyda kale ee da'yar ku sameeyay tan waxaa ka mid ahaa Giovanni Dos Santos oo 19 sano iyo 6 maalmood jiray kulankii Murcia ee bishii May 2008 iyo Santimina oo 19 sano iyo 125 maalmood jiray kulankii Rayo Vallecano ee bishii Abriil 2015. sidoo kale saddexleydii Villarreal wuxuu ka dhigayaa inuu gaaro 26 gool 95 kulan oo La Liga isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee gaara 25 gool ka hor inta uusan noqon 19 jir. horyaalada shanta ugu waaweyn ee Yurub ee qarniga 21aad. Yamal ayaa hadda rajeynaya inuu hogaamiyo Barcelona marka ay la ciyaarayaan Atletico Madrid lugta labaad ee semifinalka Copa del Rey ee Talaadada. dhinaca kale Liverpool oo go'aan ka gaartay bedelka Mo Salah. garabka Bayern Munich Michael Olise ayaa sii waday inuu buuq ka dhex abuuro kubadda cagta Yurub kadib xil ciyaareed cajiib ah. 24 jirkan ayaa si toos ah ugu lug yeeshay 38 gool 35 kun oo saftay. garoonka Anfield Olise waxaa loo arkaa bedelka ugu habboon ee Mohamed Salah, kaasoo mustaqbalkiisa kooxda uu weli shaka ku jiro. haddii xidig reer Masar tago xagaagan, Olise ayaa noqon kara musharaxa ugu horeeya ee boos garabka midig. Olise ayaa ku jiray liiska indhaynta Liverpool sanado badan, xitaa ka hor inta uusan ku biirin Crystal Palace. si kastaba, Bayern ayaa la filayaa inay dalbato wax ka badan 85 milyan oo pound haddii ay wada hadalo bilowdaan, iyadoo qiimihiisa lagu qiyaasayo ku dhawaad 130 milyan oo euro. heshiiska Olise wuxuu soconayaa ilaa 2029, mana laha qodob sii deyn ah, taasoo ka dhigan in Bayern Munich ay gacanta ku haysato go'aanka kama dambaysta ah, isla markaana gudaha kooxda loo arko mid ka mid ah ciyaartoyda aan la taaban karin. ugu dambeyn, Michael Carrick oo fariin cajiib ah u diray taageerayaasha Man United ka hor kulanka Palace. tababaraha ku meel gaarka ah ee Manchester United Michael Carrick ayaa ka codsaday taageerayaasha kooxda inay sii wadaan xamaasadda iyo taageerada marka ay la ciyaarayaan Crystal Palace. aan sii wadna xamaasadaas oo aan sii wadna jawigaas, ayuu yiri Carrick ka hor kulanka. wuxuu ammaan u jeediyay taageerayaashii safarka ah ee kulankii hore, isagoo sheegay taageerayaashiina raacay kulankii hore waxay ahaayeen kuwo cajiib ah, laakiin inaan ku soo laabano gurigeena waan dareeno jacaylka, taageerada iyo tamartaas waxay noqon doontaa wax weyn. Carrick ayaa rajeynaya in taageerayaashu ay garoonka yimaadaan iyagoo faraxsan oo sameynaya sawaxan badan si kooxda u dhiirigeliyaan. xiriirkaas waan leenahay waana wax lagu farxo sida uu u xoogeystay toddobaadadii u dambeeyay, waa inaan sii dhisnaa oo sii riixnaa. wuxuu xusay in kulamo waaweyn ay soo socdaan isla markaana kulankan uu yahay mid aad muhiim u ah, sidaas darteed qof walba waa inuu diyaar u ahaadaa. Ramadaan Kariim saaxiibayaal, meel walba aad naga daawanaysaan. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaa inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biiro oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.